hub kama iibin kartid Taiwan mana faragelin kartid qadiyada Shiinaha ee la xiriirta jasiiradan ayaa Xi Jinping si aan gabasho lahayn ugu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inta uu socday safarkiisii dalkaas shalay soo gabagaboobay sida xogaha rasmiga ah tabiyeen Beijing ayaa lagu warramay inay Mareykanka si cad uga digtay faragelinta qadiyada jasiiradan haddii taasi ay Washington ka suurtoobi weydana waxa ay ka digeen inay sababi karto khilaaf ballaaran oo kala dhexgala labadan wadan ee quwadaha dhaqaale iyo military ku gaashaaban Mareykanku waxa uu aaminsan yahay in dariiqa kaliya ee Shiinaha looga hor istaagi karo tallaabo uu qaado docda Taiwan ay tahay hubaynta jasiiradan ha ahaatee taageeradii hubeed ugu weyneyd ee Mareykanku qorsheeyay inuu Taiwan ku kaalmeeyo oo $14 bilyan oo dollar ku kacaysa ayaan ilaa hadda helin ogolaansho sharci oo lagu fasaxo hubkan bilaha xaniman ayaa isugu jira madaafiic iyo difaacyada hawada waxaase dhabusi niyad jabisay doonistii Taiwan ee helista hubkan kadib markii Trump walaac ka muujiyay fasaxistiisa kadib safarkiisa Shiinaha madaxweynaha Mareykanka oo hoosta ka xariiqay inuusan doonayn khilaaf hor leh oo haatan ka dhaxoogsada labadan dal ayaa warbaahinta u sheegay waxa ugu dambeeyay ee aynu haatan doonaynaa waa dagaal masaafo ahaan inoo jira 9500 maylis taasoo la micnaa inaan Washington maslaxad u arag khilaaf dagaal horseedi kara oo xilligan ka curta danaha la xiriira Taiwan tan la isweydiinayo ayaa sida istiraatiijiyaysan ee Shiinuhu uga faa'iideystay xiisadda bariga dhexe dabada dheeraatay ee Mareykanku ku jahwareeray dhaqaale iyo military ahaan in Beijing u bareerto luuqadda adag ee ay Washington ugu sheegtay iska ururinta hadafyadeeda Taiwan ayaa si cad u muujiyay baa la yiri in Shiinuhu dareensan yahay inaan Mareykanku haatan diyaar u ahayn ku dhiirashada khilaaf hor leh ama xitaa bilaabida dagaal cusub waxaana tani docda kale dhalisay walaaca in Shiinuhu isaga uu ka faa'iideysanaya xiisadda Iran ee Mareykanka la daba dheeraatay uu tallaabo military ku wajihi karo Taiwan taasoo ka dhigan in xilligan adag ee Mareykanku fursad dahab siinayo Beijing oo waqti dheer ku hawlanayd inay dib maamulkeeda u hoos keento jasiiradda gooni isu taaga ku dhawaaqday ee Taiwan